maalmahan dambe baraha bulshada waxaad ku arkayseen gabadhan gadhka leh. haddaba gabadhan hadalhaynteedu maaha mid hadda soo baxday ee waa mid hore u jirtay ee sawiraanteeda ayuunbaa lagu faafiyey baraha bulshada. asxaabteeda qaaliga muuqaalka like-ta saara, anagana dhiirigelin ugu noqoto, asxaabtiinana usii sheergareeya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. haddii aad ku cusub tahay page-keena Facebook ee Maxamed Wardi Official, nagu soo biir oo follow-da saar. haddii aad iga daawanayso YouTube, nagu soo biir oo subscribe-ta saar, gambaleelkana furo. aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Harnaam Kaur. waxay dhalatay 29 bishii November 1990. asal ahaan waxay ka soo jeedaa Hindiya, waxaanay haysataa dhalasho Ingiriis ah. waxaana la sheegay in qoyskeedu uu ka soo jeedo Punjab. gabadhan gadhkeeda waad la yaabaysaa markaad aragto. waxaad isweydiinaysaa, gabadh sidee u yeelan kartaa gadh? haddaba adduunkan aynu saaranahay wax walba waa lagu arkayaa. gabadhan Harnaam iyadoo yar oo 11 sano jirta ayaa waxaa ka soo baxay gadh. markaa gadhka ka soo baxay muu badnayn ee timo yaryar ayay ahaayeen. haddaba markii dambe timihii ayaa batay oo gadh noqday. markii ay 16 sano jirtay ilaa 17 sano markay jirtay, gadh weyn ayay yeelatay. haddaba caqabad waxaa ku noqotay siday iskuulka u tegi lahayd, maadaama ay gabadh tahay oo ay dadku la yaabayaan gadhka yeelatay. waxaana la ogaaday in Harnaam Kaur ay ku badan yihiin hormoonada ragga gadhka ka soo saara. haddaba gadhkii ayaa ku sii batay oo wejigeeda qaybo ka mid ah ayay timihii ka soo baxeen. haddaba gabadhanu dadkii ayay ammaan ka weyday oo mar walba way caayi jireen. cugdad ayay qaaday, xataa waxay damacday inay isdisho oo nafta isdhaafiso. haddaba noloshii ayaa ku adkaatay oo dadkii ayay ammaan ka weyday, cid dhiirigelisana way weyday. qoyskeeda qaar ka mid ah ayaa dhiirigeliyey oo u sheegay gadhkan ay leedahay inuu waxba ahayn oo nafteeda ay ku kalsoonaato. waxaana loo aqoonsaday gabadha ugu daada yar ee ugu gadhka weyn adduunka, da'deeduna waa 32 sano. Harnaam Kaur waxay marxalado kala duwan soo martaba. ugu dambeyn waxay noqotay gabadh isku kalsoon. gadhkeeda way xanaanaysaa oo ma xiirto, iyadoo ku faanaysa. waxaanay noqotay dhiirigeliye dumar, waxaanay dhiirigelisaa dumarka. sheekada Harnaam Kaur waxayna tusaysaa in qofku kalsooni isku qabo. hadduu qofku kalsooni buuxda uu isku qabo, inuu guul u gaari karo, meeshuu rabana uu gaari karo. kalsooniduna waa furaha nolosha. asxaabteeda qaaliga, muuqaalka like-ta saara siduu dad badan u gaadho, anagana dhiirigelin ugu noqoto, asxaabtiinana usii sheergareeya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga. waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooya muuqaalka xiga ee xiisaha leh insha Allah.